risaalada markuu ka waday Makka Quraysh ayaa ku xidhay shardi adag waxay yiraahdeen haddaad doonayso inaanu ku rumayno oo rasuulkii Allah tahay oo aan ku raacno dayaxu ha soo daadego dayaxa samada saarni ha soo daadego labadaada garab ha ka daadego labada buurood ee Safa iyo Marwa midba mid ha fariiso isagoo laba gobol ah haddana ha soo noqdo hareerahaaga ay isugu yimaado halkaa dushaada ee magacaaga korkiisa ay isugu yimaado dayaxi kala dhambalmay hamidoobo halkaa isugu dhago mid ha ku noqdo ha ku ashahaato hana qiro inaad rasuulka Ilaahay tahay way dhacday dhulkoo dhan baa yaa noqday waxaan indhaha hadii farta laga gelinayo oo inagoo waxaynu naanaa gudcur gooya ama aynu naahno ama gudcur rooba baabad aan ku tilmaano kolka gudcurka dhulku aad u wada u yahay waxba lama arkayo waalnaha dayaxun baa maqane dee dhulka uu soo daadegin balkaasoo dhulka yimiday waxba la arkayaa way yaabeen waxay ilaaheen war indhaheenu baa la sixraan ma inay kale sixirku ku baasiye bal qoliyihii ka yimiday dibadaha ee Makka imanaya aynu weydiino kuwii baa la weydiiyey waxay ilaaheen waxba waa la arki waayay oo dhinac loo jeediyo dhinac loo socdo mucjisadii nabigay kamid ahayd quraankana ilaahay uu ku sheegay xadiiskana way ku cadahay suuratul qamar wadika arkidii اقتربت الناس وانشق القمر dayaxa ayaa kala dhamay mucjisadii nabigay sallallahu alayhi wa sallam waxa kamid ahaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam isagoo qaswa ama dagaal guduulaan ka yimid oo ka soo noqday ayaa meel la degay meeshii la degay waxa dhacday in wax alla wixii biyo la haystay ay dhamaadaan biyaba waa la waayay walaa wax la cabo walaa wax lagu weysaysto deedna rasuulku isagoo ka warla ayaa loo yimid doonay rasuul Allah dadkii uu halaagsamay haraad baa loo dhimanayaa waxa daabadihii iyo gaadiidkii la watay la fuushana way dhimanayaan waxa loo dhawaaday inay rakubkoogii ay wataan oo smeertaan ayay ku sigteen rasuul Allah alla noo bari wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wasidaasa biyo waxba ma haysan buu in yar oo naqan oo kala xir ku jirta ayaan soo helay keena buu yiri halkii baa la agdhigay rasuulku baabacooyinkiisu sidaa u galiyay labadiisa gacmood halkaasi faraha ay sii yimaadeen dhexdooda ayay biyo cad oo aan weligood la arag wax la mid ka burqadeen dhaansada buu yiri 400 oo mujaahid iyo awrtoodii iyo gaadiidkoodii iyo weelkay wateen ayaa ka okonaaday oo cid walba ay ka dhaansatay oo raratay oo cabtay oo ku weysaysatay 400 oo mujaahid riwaayadaha qarisheegaya qaarna waa ka badinayaan wahada min mucjisaatihi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ajma'in allahumma salli wa sallim wa barik alayhi waxa kamid ahaa ghazwatul khandaq maalintii khandaq waa hol weyn oo aan farasku ka boodi karin oo la qodayay oo xadaaradihii markaa jiray marka ciidanka xoog roon uu soo weeraro ay isticmaali jireen Salmaan Farisi ayaana keenay balaynkaasi oo yiri marka anaga ay taasina qabsato sidaas aan yeeli jirnay kunnin oo khandaqii qodaya oo rasuulku ka mid yahay ayaa asxaabigii Jaabir ayaa wuxuu xaafadiisu oo rasuulku arkay wuxuu rasuulka Ilaahay gaaja ka muuqatay waxba ma haysa la cuno yaa waxay tiri saac waxaan hayaa heeda saac walba galaan oo heeda ayaan hayaa intaan ridqiyo aan andubi neefiro maqala oo naqan oo day muxuu dhashayna way uu xidhnaa neefkiina uu gowracay intiina wuxuu ridqo diyaari oo dub waxay ku tiri de wax weyn ma hayno way ogtahay khashifine waxaad yeeshaa rasuulka iyo labada ama saddexda qof ee ag jooga oo gaar hoos ugu sheego deelay raashin aynu asxaabta sinama hayne de meesha ay u khashifin rasuulkii uu tagay sidii ay tiri say ahayd buu sheegay rasuulku wuxuu ku yiri orod soco
waxaad ku tidhaa qooshkan ayaan dubistiisa la bilaabin ilaa aan imaado lerigana dabka ha ka qaadina daboolkana ha ka qaadina rasuulkii wuxuu u dhawaaqay dhammaan ciidankii khandaqa qodayay oo dhan ayuu u dhawaaqay uu yidhi soo baxa jaabir baa inoo sameeyey casuumadii ciidankii oo dhammaantood soo daba socda ayay aragtay gabadhiisii uga horreeyo fariintii buu u sheegayay nebigu sii faray waxay ku tidhi bika wabika wabika adiga weeye waxaasoo dhani soo kuumaan sheegin oo adigaa wixii aan ku ordayey asxaabtii igu khasbay maxaynu siinaynaa wuxuu yidhi sidii addi tidhi waan sheegay ee rasuulku isagaa amarkaa bixiyey nebigu wuu soo galay wuxuu yidhi daboolkuu ka qaaday wuu barakeeyey qandhuuftiisuu ku ishaaray wuxuu yidhi qooshkiina ii dhiiba gacantuu geliyey wuxuu yidhi haddaba cid kula dugtana u yeedho lerigana dabka ha ka qaadin soo gura un hilibka iyo maraqa laxooxdana ii dhiiba wuu ku darayaa ciidankii dee waa ku nila waa aqal yaroo hadduu doono magar hal qolehe lama soo wada geli karee 10 u soo daaya buu yidhi soo gala laxooxdaa loo dhiibaa maraqaa lagu daraa waa la cunaa way dhergaan way baxaan kunkiiba iyagoo ka hirqaday oo laga dhergay oo sidii uun loo dubayo dherigiina sidii u saaran yahay hilibkiiyo maraqiina ku jiraan ayay intiiba fuleen وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وحكمها روبدونتي isagoo ku taagan minbarka ninka asxaabiga uu kacay rasuul Allah ummadii way halaagsantay abaar baa loo baahayaa xoolihii way leedeen dadkii baa halis ku jira ilaahay roob noo bari labada gacmood buu kor u taagay khudbadiisii isagoo ku dhex jira labada gacmood intaanu soo celin roobkiiba markiiba intuu isqabsaday ayuu sii daayey wuu waday toddobaadkii oo dhan jimcihii dambe iyadoo sidii uu u kala go'in ayaa isla ninkii salay axaadiista qaar sheegayaan qaarna waxay leeyihiin nin kale waxa uu kacay uu yidhi rasuul allah xoolihii way halaagsameen dhulkiiba biyaa qaaday meel loo dhaqaaqa ma jirto waxay cunaan ma hayaan ilaahay inuu inoo fudaydiyo ilaahay inoo weydiiye allahuma ijcal xawaalayna walaa calaynaa buu yidhi ilaahu dushayada ka yeelo hareerahayaga ka yeelo dushayada ha ka yeelin madiina sidii dalladu muuse uga kala kacay hareeraheega iyo togaga iyo magarasa dhulka xooluhu daaqayaan iyo buuraha allah ayuu noogu suguuri mucjisadii nabiga yahay sallallahu alayhi wasallam sanadkaana xooluhu galgelintay ka kici waayeenoo magac baa loogu bixiyey nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan ku soo gabagabaynayaa rasuulka maxabadiisa iyo jacaylkiisa qofka ku farxaa ilaahay ma khasaariyo hadduu gaal yahayna daliil baanan soo dhigaya abilahab oo adeerkii ahaa oo caydiisa suuradan oo qur-aankii ay ku soo degtay iyo hooggiisa iyo naarta u gelayaa nooca ay tahay ayaa gabadhii addoonta ahayd ee awlahaa isagu u soo sheegtay in walaalkiisii dhintay cabdilaahi inaan loo dhalay wuu ku farxayoo farxaddaa aad ii soo sheegtay in walaalkii inaan ka hadhay uu u dhashay xor baa tahay buuna wuu xoreeyey farxaddaa uu ku farxay waynu ognahay oo gaalnimadii iyo hooggii iyo bi'ii buu ku dhintay abilahab waana ehlu naar walaalkii cabbaas saxaabigii weynaa jaliilka ah cabbaas bin cabdilmudalib way walaala ahaayeen ayaa riyo ku arkay wuxuu yidhi bal ka waran xaalkaaga dee xaalkaygu waa naaroo cadaabtaan ku jiraa buudi laakiin maalinta isniinta ah ayaa la iga khafiifiyaayoo in yaroo labadaa lugooda un laygu daayaa dabka kale layga khafiifiyaa halkaa labadeeda faroodna biyaan ka cabbaa buudi ilan biyo baad ma jira ee waa naar buu ku gubanayaaye maanu gaalkii ugu daraa ee qur-aanku caddeeyey ahayn war qofka islaama ee ku farxay ee u soo diyaargaroobay ee siiradiisa dhegaysanaya ee salligiisa wada maxaad moodeen markaa walaalayaal salliga nebiga iyo siiradiisu dee diin weeyaane oo ilaahay baa ina amree waa cibaadada qurahee salliguna ilaahay aniguna waan idinkula jiraay ilaahay isagunbaa cibaadada salaadda tukadayna yidhiye waan tukadaa inama odhan sekada innagaa layna faray soomka innagaa layna faray ilaahay muxuu yidhi
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وسلم وسد شرفها إلهي هينو أنفعه محبة رسولك مولد في سنة بلاي أورن الله ينقدر وحب بلاي نغفرا الله ينقحله خير حين يحلنا الله ينغفره لمعاد الروب كاوبو قال سنة الله فدقي سهي نغشبه تونا منافعات أولك إيادتك إيادتك ونوليس الله ينغدقه وبلاي توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته